deeqdani raashinka ah oo ka koobnayd qaybaha kala duwan ee raashinka ayaa maanta hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxay u dirtay deegaanadii dhowaan laga xoreeyey kooxda khawaarija al-shabaab ee ka tirsan hirshabeelle deeqdani raashinka ah ayaa ahayd 10 gaari oo sida raashin gaaraya 100 tan oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan qoysas gaaraya 3333 qoys oo ku nool deegaanada ka tirsan hirshabeelle waxaana goobta laga diray raashinkani oo ahayd baqaarka hay-adda ku sugnaa gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle wasiiru dowlaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka hirshabeelle agaasimaha guud ee hay-adda iyo agaasimo waxiidyo ka tirsan hay-adda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ka oo sharaxaad ka bixiyey raashinkani maanta ay u dirayaan deegaanada ka tirsan hirshabeelle waxaan halkan u joognaa inaan sagootino raashin cunno raashin ah oo hay-adda maareynta masiibooyinka ay ugu tala gashay deegaanada hirshabeelle khaasatan deegaanadii dhowaan laga xoreeyey nimankii khawaarijta al-shabaab runtii hay-adda maareynta masiibooyinku waxay mar hore ballan qaaday inay deegaan kastoo la xoreeyo ay gargaar la gaari doonto dadka deegaanku waa is xoreeyeen dadka deegaanka cali guduud deegaanada ku heerarsanoo sidii ilaa iyo aadayabaal roonurgood dhulkaasoo dhan mudane wasiir waxaan rabnaa maanta inay aado raashin runtii gaarayo 3333 qoys oo aan isleeyahay baahiyada eriyadaas ka jirta waa xallin doonaan wasiiru dowlaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka hirshabeelle ahna siihayaha wasiirka wasaaradda yuusuf axmed yalaxow ayaa ka mahad celiyey deeqdani raashinka ah ay maanta hay-addu u dirtay deegaanada ka tirsan hirshabeelle runtii waxaan idinkaga mahad celinayaa sida qiimaha badan leh dadaalka faraha badan sharafta badan ee aad ugu dadaalaysiin uguna adeegaysiin ummaddiinna soomaaliyeed ee dhibaatada culus ku dhex jirta runtii gaar ahaan hirshabeelle runtii ammaan weyn ayay idiin soo jeedihaysaa dadaalka faraha badan ee aad la garab istaagteen ee ad ugala qayb qaadateen dagaallada xoogga badan ee aan kala go' lahayn ee habeen iyo maalin socda gurmadka iyo garab istaagga aad u samayhaysiin runtii waa idinkaga mahad celihayaan taariikhda ayaana xusi doonta insha allahu tacaala annagu ka wasaarad ahaan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaad igu wareejiseen idinkana guddoomo raashin aad u fara badan oo gaaraya 10 gaari oo waaweyn waxaana ku raran raashin aad u fara badan oo nuucyo kala duwan leh wuxuu ka kooban yahay raashinkaasu haddii la yidhaa miisaan ahaan 100 tan ayuu ka kooban yahay 100 tan oo raashin ah oo raashinka qaybihiisa kala duwan ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa horay u ballanqaaday in deeqo isugu jiro raashin iyo dawo ay gaarsiin doonto deegaanada laga xoreeyo cadowga si bulshada deegaanada oo muddo dheer ay argixisadu dhibaato ku haysay loo gaarsiiyo gurmad degdeg ah cabdulqaadir fantastic warbaahinta qaranka muqdisho